sanadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kobcayay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday 4 sanadood horteed. laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ma aha mid dhawaan bilowday. haweeney Soomaaliya ayaa dhawaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baadi goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan awoowayaasheed. sheekadaasi halka ay ka soo jeedo Aamina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo 13 sano waxaa inoo haya Haaruun Macruuf. bishii Julaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awoowayaasheed oo ay in muddo ah ku taamaysay. Maxamed Siciid Shabeel waa duqii hore ee magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan. habeenada ka mid ah waxay iiga bilowday oo waxay tiri Maxamedow waxaan doonayaa walaalle in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii. waxaana ku dhaliyay maadaama ayaan Soomaalidii u ekayn oo ay ku noqoto qof ajaanib ah. dabeedna anigu waan ka aqbalay waxaan u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii. kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan, Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho. waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awoowayaasheed halka ay ka soo farcameen. safaaradda Turkiga tagnay waxaan u geynay dukumiintiyo aabaheed iyo awoowayaasheed ay uga tageen oo ay haysatay. safaaraddu waxay la siisay fiisa waxayna soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa si ay isu bedeleen. waxaanu ku soo qaadanay fiisihii baan sidaa ku soo qaadanay. waxaanu ka soo degnay Istanbul wax dana kama aanan lahayn. waan soo dhaafnay magaalada la yidhaahdo Izmir baanu nimi. waanu soo gudubnay waxaan soo galnay Denizli. 2 maalmood markii ay ku sugnaayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda. maadaama aysan afka aqooninna waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaasi oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda. waxayna baadi goobkii ka bilaabeen xafiisyada dawladda. Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi. hoteelkii aan deganayn baan ka soo baxnay. wiilal Soomaaliyaanu ishelay. aad bay noo caawiyeen. Soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn, aan kala qoqolomnayn, meeshay arkaan walaalo ah, friends ah, inay weligood is aqoon jireen aad moodo. marada macnaha go'a ay wataan wada huwan kara markiiba. marka aad bay noo caawiyeen. wiilashii way nala kaceen. waxaynu tagnay subax baynu baxnay. waxaynu tagnay halka la yiraahdo gobolka. xafiiskii ugu horreeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen. Maxamed Cusmaan Shabeel ayaa sharaxaya waxa ay kala kulmeen. waxaa loo geeyay lawyer. markii aan u sheegnay oo tusnay dukumiintigayagii wuxuu yidhi dadkan aniga aad u aqaana. telefoon buu ku dhiftay. telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay. wuxuu ku yidhi waxaan hayaa dad ka yimid Soomaaliya oo Turki ah oo idin sheeganaya oo ciwaanadiina wata. wuxuu yidhi hal su'aal baan weydiinaya. su'aalku gabadha xaaskayga ay weydiiyey. sidiiba wuxuu yidhi halkaas su'aal noo weydii aabaheed halkuu ka shaqeeya. dad Soomaaliya jiro Afrika naga jira way jireen oo waan u sheegnay. wuxuu yidhi waa isleenahay reerkaasi inoo hay dadkaasoo hadda u imaanayna saacad kadib. baabuur bay noo soo dirsadeen. waanu raacnay dukaan magaalada ay kula yihiin bay na geeyeen. wiilal kalena loo geeyey. sawiradii aan wadanay baanu tustusnay. wixii baa la baaray. waaba anigoo yar waa hooyaday. wixii bay iswada yeesheen. aabahooday waceen. waxay dhaheen aabo reerkaasaanu haynaa. wuxuu yidhi had ii weydii hadday ii imaan karaan. maxaaba haynaaba ayagaaba raadinaynay. haa waa u tegi karnaa. odayga sawir buu iisii diyaarsaday isaga oo dhalinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale. yidhi aabaha ka soo saar. aabahay baa waa kan abaa ere bis gabadhan waa gabadhaydu yidhi waan aqbalay. waa gartay. reerkii oo dhan buu isugu yeeray. telefoonna u diray. wuxuu dhalay. waxay sii dhaleen intii kala maqnayd dumaradii xaasaskii iyo wixii. halkii baa casuumaad in lagu sameeyey. halkii baan isku sawiray. haddaba sidee ayaa Aamina awoowayaasheed ay ku yimaadeen Soomaaliya? safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho oo fududaysay safarka Aamina Cusmaan iyo Maxamed Siciid Shabeel ayaa ii sheegtay in Maxamed Cusmaan Khaliil Oolu uu ka mid ahaa askartii Cusmaaniyiinta
kuwaasi oo loo soo diray Soomaaliya dabayaaqadii 1890kii kadibna uu degay Soomaaliya oo uu ku guursaday haweeney Soomaali ah ayna u dhashay 10 carruur ah oo uu ku jiro Aamina Cusmaan aabaheed. wuxuu ahaa Cismaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awoowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaadsanin ma arkin laakiin taariikhdiisa sawiradiisa sheekooyinkiisa sidaan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii Yaman bay uu kaga xumaaday وبعدين مقدشو يمد لكن ما متكل وكسر راعي ما ديار بكو يمد ما قرن كرو كبعدنا محوسمي كبعدنا إن ماشي إن مقدشو مركي أوتري وكو جورسدي كان مقلي واقرت يو جورسدي يو جورسدي إسلام صومالي واقرت ما كذب أباه يقول الشيء يجي ودنك كودري كموسى صون نقولن روح وحن هاي صراحة إيطالياني يسر أوسيي oo xataa qabiil iyo turki ay ugu qoran tahay malaha qabiilka iyo qori jireen talyaaniga u maleynayaan Cusmaan Maxamed Khaliil oo ahaa Aamina aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday Soomaaliya oo ahaa wadankiisa oo ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka Turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka Maxamed Saciid Shabeel iyo Aamina Cusmaan waxay isbarteen sanadkii 1989kii waxayna isguursadeen sanad kadib waxayna isku dhaleen 6 carruur ah inkastoo Aamina ay ku dhalatay magaalada Muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin wadan aan Soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen horta qoyskayga iyo halka ay iska soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof Soomaali ah baan ahay horta run baan ku sheegayaa oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay carruurtayda ah jimsigayga iyo dhiigayga baa ah saas oo tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waa dareemi kartaa hadda adiga waxaad ku nooshaa qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xageed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weliga igu jiray marka ilaa guriyahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denizli inay gacan qabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dawladda Turkiga wuxuu yiri adeerkay dawladda Turkiga aad magan u tahay xaqeenaan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar Turkiyada tahay miiska markaad garaacdo oo khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadha qayladaada aadna هارون معروف ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay idaacaddii galabnimona waa naga intaa